bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan halkani waa radio kulmiye ku soo dhawaada qodobada aan idin hayno wararkeena maanta kuwooda ugu waaweyn faahfaahin laga helayo qarax gawaari oo al-shabaab ay ku weerareen saldhig military oo ku yaala Jubbada Hoose dad ku soo dhaawacmay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe oo si isdaba joog ah loo keenayo magaalada Muqdisho gaadiidleyda iskaga kala gooshay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka oo ku dhawaaqay shaqo joojin booliska dalka Kenya waxay sheegeen inay heleen xogta ninkii isku qarxiyay Nairobi waxaana ku rajoogaan haweenay hub u kaydisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukuntay sarkaal la sheegay inuu dilay xaaskiisa ciidamada ammaanka Puntland oo boosaaso ku qabtay waxyaabaha qarxa oo weerar la damacsanaa al-shabaab oo mar kale dad shacab ah ka afduubtay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ruuxii ugu taajirsanaa dalka Filibiin oo geeriyooday iyo in ka badan 20 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay dalka Mexico Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad markale duhur wanaagsan waa sabti 19 bisha koowaad ee January sanadka 2019 warkeena duhur Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo anigoo ah Farxiyo Xuseen ayaan idin socodsiinayna markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay gobolka Jubbada Hoose faahfaahin ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerar lagu qaaday xire ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Baarsanguuni yiraahdo al-shabaab oo saaka ururtii xiradaasi weeraray iyo maamulka Jubbaland ba guulo ay ka sheeganayaan sida wax looga qoray iyo xaaladihii ugu dambeeyay wariyaheena Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa noo soo koobaya waxa uu ahaa dagaal xoogan kuna bilowday 3 qarax gawaari laga soo geliyay jihooyin kala duwan saldhigga militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee Jubbada Hoose dadka deegaanka saraakiisha ciidanka iyo xubnaha al-shabaab ayaa marka loo fiiriyo dagaalka ka soo warinaya warar kala duwan waxaas isugu dhow midda dadka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka waxa la wada qiray in ka hor salaadii subax saacaduna ahayd 4:30 daqiiqo ah shabaab isugu jiray gawaari qaraxyo ka buuxaan iyo rag infantry lugaynaya ay abaareen saldhigga Baarsanguuni oo ay ku sugan yihiin ciidanka fariisimo ku leh waa ciidan fariisimo halkaas ku leh al-shabaab oo sheegay inay gudaha saldhigga qarax la galeen ka sukow ayaa abaanduulaha xoogga ee qaybta 43aad gaashaanle sare Maxamed Buule waxa uu waraysi aan la yeeshay ugu sheegay sidan qarax bay nala soo aadeen midna hoos buu nagu yimid oo xagga dhanka Kismaayo ah labana xagga naga soo galeen ilaahay wuxuu noo sahlay in mid kasta oo meesha uu maray aan ku qarxina ma garad sideed ku qarxiseen laba marka hore aan qarxinay kii kale qaraxana waan qabanay oo laba sangantaal sabana ku dhacay ninkii wali waa uu soo tagalay wasiino isqarxiyo laba saac kadib uu kaliya iska qarxay ma garad waa baawurda nooca baraadada iyo noocaas waa baraadada iyo saaruf wax noocaas ah baawurka waa gogoyo moostay tilmaantiisa lama dhameystiri karo dadka deegaanka ayaa dhankooda inoo xaqiijiyay in qiyaastii muddo saacad ah ay socotay rasaasta kadibna uu qarxay gaari kale isla markaana ay arkeen askar iyo sidoo kale raggii weerarka qaaday ee shabaab oo ku dhintay dagaalka abaanduulaha ayaan weydiiyay weerarka tooska ah ka sukow qaraxyada iyo sidoo kale askarta kaga geeriyootay waxaan uu ka hadlay dhanka kale shabaabka ay dileen maya hada infantry way ku yimaadeen baan ku yiri infantry lamba 3 gaari markii infantry ku ciidanka difaaca u xirnaa dhufayskiisa waa dhisnaa ciidan ilaalada waa ka horeeyay ilaa xabada markay ku bilaabatay ciidankii kala gurmad ku gaari nimankaas meesha lagu baabay 7 nin mayadkooda hadda taalama garab laba gaarina waa ka daba tagnay laba gaari kalena waa ku gubnay ma garab waliba kuma yakaan intaas dib aan ugu daba tagnay anagu labaan laga dhimantay Allah u naxariisto oo qarixi ah laba ninka askariga ku dhuftay sabanka iyo nin kale iyo ku dhintay askar la saddex askariina waa fudud baa la gaaray oo ilaahay amarkiisa oo filimkii gaariga in xabad ay wax yeelaysay ma jiraan kulay ma garab Baarsanguuni oo qiyaastii 45 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose ayaa waxaa fariisan ku leh ciidanka militariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Jubbaland waxaana dhowr jeer Baarsanguuni sidan oo kale shabaab ay weerar kula kalaheen iyadoona ay saraakiisha lagu eedeynayo wax ka barasho la'aanta kuwii hore
dad ku soo dhaawacmay dagaal beeleedyada ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa si isdaba joog ah waxaa loo keenayaa magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loo daweeyo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. iyadoo weli ay ka taagan tahay deegaanada Ceelbaraf iyo Ceeldheere oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe colaado u dhaxeeya dadka deegaanka kuwaas oo ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxa magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaal beeleedka ka socda deegaanada Ceelbaraf iyo Ceeldheere oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe dhaawacyada la keenay magaalada Muqdisho isla markaana ku soo dhaawacmay dagaal beeleedka ayaa waxay intooda badan ay u badnaayeen caruur kuwaas oo saameeyay dagaalka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhaawacmay dagaal beeleedka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxay ka warbixiyeen dhaawacyada ay keeneen magaalada Muqdisho waxay ku dhaawacmeen meel ay ku hiyayaan habeen waxa waayay marka 5 qof ayaa dhimatay farna waa dhaawac dagaalkan waxa la isku haystaa adiga qabiil dhulal iyo wax la isku haystaa jira iyo wax badan oo ismaandhaaf iyo dilmo hore ka horeyso waxa awil isdildilay xasaas ah ka horeeya dadka dhintay waa 5 qof hadda dadka la keenana anku aan wadnana waa 4 dagaalkay ku soo dhaacmeen caruuray ayay u badan yihiin dadka dhintana gobol waayeel hogaboobaya ku jira dadkan hadda la keenay halakan waxa la keenay 4 qofood la keenay kii shanaad waa uu dhintay 5 qofood waa xijaabatay waa la soo aasay raxmadiisa Ilaahay ha ku maneesto waxa hadda hoos yaala waa 4 waa dhab waxa kamida ilmo yar yar ku jira waa canug yar waa nin hadoo muuqdo 13 14 lagu qiyaas waa markii labaad ee magaalada Muqdisho la keenayo dad ku dhaawacmay dagaal beeleedka ka socda deegaanada Ceelbaraf iyo Ceeldheere oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe farxaan ma santahay gaadiidleyda iskaga kala goosho ama kaxeeya gaadiidka iskaga kala goosho magaalooyinka Muqdisho iyo gobolada qaar ee dalka ayaa waxay ku dhawaaqeen inay sameeyeen shaqo joojin waxaana sababtaasi ay ku sheegeen isbaarooyin yaalla qaar ka mid ah gobolada dalka ee Soomaaliya sida Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Shabeellada Dhexe. Wariyahana Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo diyaariyay. isku soo baxan maanta ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho boqolaal ka tirsan gaadiidleyda ka shaqeysa magaalooyinka isku xirta Muqdisho Jowhar ilaa Yoobyo ayay ugu dhawaaqeen shaqo joojin ka gadaal markii ay ku soo bateen halkaasi isbaarooyin cusub sida ay sheegeen wadayaasha qaar isbaarooyinka ku soo kordhay wadooyinka isku xira Muqdisho ilaa Yoobyo ayaa lagu sheegay inay dhigteen militariga Soomaaliya ee qaybahan ka shaqeeya maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug maray la hadleen warbaahinta qaar ka mid ah dowladda kaxeeya gaadiidleyda ka shaqeysa magaalooyinka aan kor ku soo xusnay ayay ka dalbadeen madaxda dowladda Soomaaliya ugu sareysa iyo taliska militariga Soomaaliyeed inay arintaasi wax ka qabtaan hadii kalena ay sii joogteynayaan shaqo joojintooda iyagoo waliba laga doonayo masaariifta ay ku maareen lahaayeen qoysaskooda waxaan dhib oon haysta ilaa muddo aan ku soo sabraynay oon u dul qaadan weynay isbaarooyinka gobolka Banaadir ilaa iyo aada meesha la yiraahdo ilaa iyo Galgalata ilaa iyo Ceelmacaan ilaa iyo meesha la yiraahdo Cadale aan lacagteeda warsheeq ilaa dhulkaas oo dhan waa mari weynay gaadiidkii maadaama oo intaas uu lacagtii oo dadka laga qaaday dadkina ay laqaadaan yihiin gaadiidkina ay dhaqaale ay waayeen saas daraadeed waxa loo go'aansanay inaan gaadiidkana dhigano waxaan ka codsanaynaa maamulka ama Hirshabeelle ha ahaado ama gobolka Banaadir ha ahaado waxaan rabnaa wax allaale waxay naga dhihi laayeen gaadiidka wadada aan ku shaqeysano waa lanahay gaadiidka aad aragteen waa gaadiidkii raray 3 bari raran yihiin kuwii raray waa kuwa u jeedin inta kale to waa intii faaruq ahayd oo tookada ku xigto suganayday waxay waayeen wada ay maraan waxaan rabnaa in si maaragtay dawladda naxariis ku jirto nala hadlo isbaarooyinka nala ka qaado wada wanaagsan oo aan ku shaqeyno aan helno inta baan doonaynaa dhammaan dhibkan waa wada haya inta gaadiidka wada waxaan ka cabanaynaa marka ka banaan baxnay isbaarooyin aad u adag iyo lacag qaadasho aad u adag oo aanba wax tabara loo haynba baabuurkii duuba tabaasagana 500 oo lacag ku baxay 200 oo kamida waxa lagu reebtay Ceelcadde meesha la cadalay intii ka dhaxayda Galgalato waa wax cad wax la qarina ma ahan waa wax muuqda waa wax taagan haddaad nuuxidana waxba ku xigaba dil arintan ayaa caqabad weyn ay ku noqon doontaa shacabka isku kala goosha magaalooyinka Muqdisho Jowhar ilaa Yoobyo maadaama shaqo joojin ay ku dhawaaqeen gaadiidleyda halkaasi ka shaqeyn jirtay intooda badan sidoo kale shacabka Soomaaliyeed iyo wadayaasha gaadiidka ayaa horey uga cawdeen isbaarooyin la soo dhigay wadooyinka Muqdisho iyo gobolada dalka isku xira
booliiska Kenya ayaa helay xogta ninkii isku qarxiyay Nairobi waxaana ay sidoo kale ku raad joogaan haweeney keedisay hubkii lagu weeraray. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa dhameystiraya. warbaahinta Kenya ayaa waxa ay shaaciyeen magaca haweeney ciidanka amnigu ay ku eedeeyeen inay Soomaaliya ka qaaday hubkii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku weerareen hotel ku yaala magaalada Nairobi Talaadii aynu ka soo gudubnay. Saraakiil ka tirsan qaybta argagixisada dirarka ee booliiska Kenya ayaa waxa ay ku guuldareysteen in Maryan Cabdi ay ka soo xiraan Eldoret, koox kalena waxaa loo diray magaalada Milindi welina macada in ay soo xireen iyo in kale sida uu ku waramay The Standard. Maryama waxaa la sheegay inay ka soo jeedo deegaanka Bundini ee Mombasa hoostaga waxayna isku xir muhiim ah u sameysay qorsheeyaasha weerarka iyo kuwii fuliyay oo la ogaaday inay ka tirsanaayeen amniyaadka Al-Shabaab sida uu qoray wargeyska The Standard. dhinaca kalena waxaa markii ugu horeysay laamaha amniga ee Kenya ay ogaadeen aqoonsiga ninkii isku qarxiyay hotel ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen kaas oo ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. wuxuu ahaa 25 jir lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Risiki wuxuuna ka soo jeedaa tuulo hoos tagta Mombasa. boolisku waxa ay sheegeen in Maahir Khalid Al-Shabaab uu ku biiray markii uu masaajid kula kulmay Ramadaan Xasiini Kufunwa oo hadda ku sugan Soomaaliya kana barbar dagaalama Al-Shabaab. dalka Kenya weli waxaa ka socda baaritaanka weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi kaasi ay ku dhinteen 22 ruux tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. baaritaanka waxaa qayb ka qaadanaya hay'ado caalami ah. jimcihii shalay ayaa waxaa maxkamadda la soo taagay 5 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la lahaayeen raggii weerarka fuliyay. maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxa ay xukun ku riday sargaal la sheegay inuu horay u dilay xaaskiisii. wariyaheenna Liibaan Nuur Xasan ayaa warkaan inoo faahfaahinaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Sabtida xukun ku riday eedeysane Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo ah xidigle ka tirsan ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa loo haystaa dilka marxuumad Sacd oo ahayd xaaskiisii hore oo sida la sheegay oo ku dilay Toorey. dilkaasi ayaa ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir 19 bishii 12 sanadkii tagay ee 2018. Maxamed Cabdiraxmaan Cali iyo marxuumad Sacdiye Khaliif Farax ayaa hore u ahaa lamaane isqaba balse markii dambe ay kala tageen. waxaana la sheegay inuu isku dayay inuu dib ula midoobo xaaskiisii hore balse uu dilay. ciidamada amniga degmada Yaaqshiid ayaa isla xilligaasi oo ahayd habeen soo qabtay eedeysanaha. baaritaan kadib Maxamed Cabdiraxmaan Cali ayaa lagu wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxayna saaka ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Sacdiye Khaliif Farax. sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa sheegay inuu racfaan u furan yahay xukunsanaha haddii uusan ku qancin xukunka ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. markana aan eegno wararka ka imaanaya gobolka Bari. ciidamada ammaanka Puntland ayaa Boosaaso waxa ay ku qabteen waxyaabaha qarxa oo weerar la damacsanaa sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Maxamed Soomane. ciidamada ammaanka maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo BSF iyo kuwa badda ee BMBF iyo kuwa booliska gobolka Bari ayaa howlgallo xoogan waxa ay xilligan ka wadaan xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland kadib qarax laga helay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi. howlgallada ayaa daba jooga qaraxyo xalay ciidamadu ay ka soo saareen bartamaha magaalada Boosaaso waxaana la sheegay in ciidanku ay ku baadigoobayaan shakhsiyaadka gacansaarka la leh ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso sida ay saraakiishu ay sheegayaan. ciidamada badda Puntland ee BMBF u nugtooda la dagaalanka argagixisada oo kaashanaya ciidamada ammaanka maamulka Puntland ee BSF ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso waxay ku soo qabteen walxaha qarxa oo la doonayay in la dhigo mid ka mid ah wadooyinka mashquulka badan ee isticmaalka gaadiidka iyo dadweynaha u badan ee gudaha magaalada Boosaaso. ciidamada BMBF iyo BSF ee Puntland ayaa ku guuleystay in ay soo furaan qaraxaasi oo lagu xiray wadada laamiga ah oo ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ganacsiga magaalada Boosaaso kadib macluumaad ciidamadu ay ka heleen dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada gaar ahaan kuwii goobta ka dhawaa. saraakiisha ciidamada ayaa soo bandhigay qaraxyadii lagu aasay goobtaasi, gaarigii lagu qarxin lahaa iyo sidoo kale macluumaad dhammaystiran. saraakiisha ka qayb qaadanaysa howlgallada iminka ka soconaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan natiijada ka soo baxda howlgallada lagu xaqiijinayo amniga isla markaana lagu baadigoobayo kooxaha qaraxa soo dhigay
waddada dheer ee bartamaha magaalada boosaaso. iminkana galgaduud aan eegno. al-shabaabna waxaa la sheegay mar kale inay dad shacaba ay ka qafaasheen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. maxamed cabdiweli tuuxow oo dhuusamareeb jooga ayaa warkaan inoo soo diray. deegaanka burujeed oo hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaa al-shabaab ayaa ka afduubeen 2 nin oo mid ka mid ah uu yahay nin ganacsade ah oo si weyn looga garanayo deegaanadaasi. ninka al-shabaab ka haysteen oo lagu magacaabo cabdilaahi gamuure ayaa xilliga gacanta ay ku dhigeen al-shabaab waxa uu watay gaari noociisu yahay caasi ama hoomi oo uu raashina kaga soo daabuli jiray magaalooyin ka mid ah gobolka galgaduud. sababta ninkani ganacsadaha ah al-shabaab u xireen ayaa ilaa iyo haatan loogeyn. dadka deegaanka burujeed waanu xiriir la samaynay waxay noo sheegeen in 2 nin ee gacanta u galay al-shabaab ay u ka haysteen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyaga iyo baabuurka ay wateen. odayaasha deegaanka oo sameeyay isku day ku aadan sidii loo soo sii dayn lahaa raggani al-shabaab u xiran ayaa ku guuldaraystay deysmadooda waxaana deegaanka dadka laga afduubay ka arrimiyay al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan kuwa ay joogaan al-shabaab. waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanayay afduubka dadka shacabka loo geysanayo kuwaasi oo ay u geysanayaan al-shabaab. maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb. warka duhur ee idaacadda kulmiye ayaad dhegaysanaysaan. duhur wanaagsan. akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. henry sai oo ahaa ninkii ugu taajirsanaa dalka Filibiin ayaa ku geeriyooday da'da 90 sano jirka asagoo jira. henry ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha inkastoo ganacsigiisa uu ka bilaabay dalka Filibiin. qiimeyn uu sameeyay wargeyska la yiraahdo Forbes oo ka faalooda arrimaha dadka ugu taajirsan caalamka ayaa sanadkii la soo dhaafay lacagta faa'iidada ay haysta Henry waxa uu ku sheegay inay gaarayso 19 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Mr. Sai ayaa horaantii 1956 ganacsiga ugu horeeyay ka bilaabay dukaan lagu iibiyo kabaha isagoona ugu dambeyntii noqday qofka wadankaasi oran ugu taajirsan. sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa Henry Sai ayaa saaka ku geeriyooday gudaha dalka Filibiin. ugu dambeyntiina dhageystayaal ugu yaraan 22 ruux ayaa dhimatay halka 71 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax ka dhashay mid ka mid ah dhuumaha shidaalka uu ka dhacay dalka Mexico. gudoomiyaha gobolka Hidgo Umar Fayaad ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay mid ka mid ah dhuumaha shidaalka oo ay adeegsanayeen kooxo tuuga ah oo xatooyo ku sameeya shidaalka dalkaasi. sawiro laga baahiyay TV-ga qaranka dalka Mexico ayaa muujinayay qiic xoogan oo cirka isku shareeray kadib markii uu qaraxa u dhacay. qaraxan oo noqonaya mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Mexico ayaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi waxa uu dalbaday in caawimaad degdeg ah loo fidiyo dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi. burhaan farxii warkii duhur dhageystayaashu ay ka dhageysanayaan radio kulmiye magaalada muqdisho xilliga waa naga inta cidii u dhaafay dib ugu heli karaan radiokulmiye.com oo hadda toosan uga dhageysanaysaan iyo barteena Facebook iyo sidoo kale idaacadaha bahwadaagta nahay ee ku kala yaala gobolada Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Mareykanka. meelba joogtaan waxaad leenahay maalin wanaagsan.